falkan waxaa qayb ka ah oo hogaaminaya kow jaamac kuutiye waa wada garanaysaan 17 sano buu Hargeysa iyo Berbera ku xunay Madheera waa nin la yaqaan weyn ku jira nin la yiraahdo Cabdisamad Cali Xasan ku jira ina cuno joog waa garanaysaan waxa ku jira Sheekh Umar Damagaare Umar Suudani waxa ku jira Sheekh Umar Sheekh Usmaan Dariiqi waa ninka gudoomiyaha u ah ee xirsi saaxiibka la ee dhawaan Hargeysa ka yimid bismillaahir rahmaanir rahiim Ramadan Mubaarak muuqaalkan isgaarsiiye waa degdeg weeye qof kasto reer SSC Khaatuma meel kasta uu joogo fariintani waa ammaan weeye waa arrin khatar inagu ah u baahan inaynu ka feejignaano xog baan fashilaya caawa oo barito ah oo aan doonayo in laga hortago aniga maantaas wali soom bay tahay wali ma afurin waxa keentay inaan intaan afurin inaan degdeg ku soo duubo waa in fariinta iyo xogta idila wadaago isgaarsiiya share gareey qof kasta ha share gareey fadlan share gareey si fariintan qof walba u gaadho reer SSC Khaatuma waayo waxaan rabnaa khatar kasto deegaankana ku soo wajahan inaynu ka hortagno wadajir iyo midnimada aynu uga hortagno waa maasantiin waxa jira qorshe halis ku ah midnimada iyo wadajirka ummadda reer SSC Khaatuma dawladnimadooda iyo jiritaankooda nololeed arrin khatar ku ah arrintaasi waxa laga abaabulay Hargeysa waxa ku lug leh dawlado badan sida dawladda Imaaraadka Carabta oo dhaqaale badan ku bixinaysa maadaama dekada Berbera oo DP World ay markaasi maalgelisay kadib dagaaladii laascanood ka dhacay ummadda reer SSC Khaatuma oo ay dekada ka wareegeen isla markaana ay u wareegeen dekadaha Garacad iyo Boosaaso halkaasi khasaaro weyn ba Imaaraadka iyo DP World ba iyo jabhadda SNM cashuur badan ka heli jirtayba ka soo wajahay colaadaas inaga iyo SNMna saameyn weyn bay ku yeelatay Imaaraadka sababta ay daran badan oo ay lahayd ba meesha ka baxay waxa jirtay guddi uu magacaabay ninka lagu magacaabo hogaamiyaha jabhadda argagixisada SNM Cabdiraxmaan Ciro oo gudoomiye looga dhigay Cabdiqaadir Jirdoon in isaaq oo Arab ah waxa lagu yeeray guddida nabadda jabhadda argagixisada SNM markii guddida la magacaabay waxay isku dayeen inay xiriir kala duwan la sameeyaan iyo kuwa ay markii hore u shaqeyn jiray ama Sool ha joogan ama Cayn ha joogan ama Sanaag ha joogan sida xogaha ku helayo kooxdii Sool iyo Sanaag waa ay ku guul daraysteen waa ay ku fashilmeen cidna waa ka waayeen waxay u gudbeen gobolka Cayn oo ay ka heleen rag ay waxa weeye aan magacyadooda aan tirin doono oo ka shaqeynaya qorsho halis ku ah midnimada iyo wadajirka reer SSC Khaatuma waxa rabaa dawlad iyo shacabba in la gaarsiiyo Soomaalidu waxay tiraahdaa nin weyn waxa uu ugu jecel yahay cunto ugu jecel yahay waa caano hadal wuxuu ugu jecel yahay dan sida daraadeed waxa la abaabulay in koox horgal ah waayo horgal marka la leeyahay qofka midnimada iyo wadajirka reer SSC Khaatuma wax lidu ku ka shaqeynaya waa horgal cid kale u shaqeynaya waxa la abaabulay koox xubno ah oo magacyadooda tirin doono oo ka kooban 20 xubnood hogaaminaya 6 nin reer Buuhoodla ayaa la abaabulay 20 guddiga waxay ku sheegeen berito ay Buuhoodla ka baxayaan waxayna tagayaan Gaashaamo halkaas ay waxaan kula shiraynaa anagoo reer Buuhoodla isaaq oo isugu jira habar yoonis iyo habar jeclo haddaan reer Buuhoodla nahayna nabad baan la qaadanana ma aha nimankaasi dadkii reer Buuhoodla afkooda ku hadli jiray ma aha wax garadkii waa niman horgalaa oo cad guursi loo soo tuuray arrintan dawladda labaad ee ka shaqeynaysa waxa weeye waa Ingiriiska oo doonaysa in laba qodobba uu hirgalo wadooyinka la isku furo ganacsiga ay dhinac maraan Imaaraadka iyo Ingiriisku waxay dhaqaale ku bixiyeen in cid uu laga helo reer SSC Khaatuma laaluush la siiyo waxa la helay 6 xubnood aan magacyadooda barnaamijkan ku faaqidi doono ama ku carabaabi doono xiriir kala duwan ay la soo sameeyeen nimanka guddida nabadda waxay ugu yeereen jabhadda SNM ee hogaaminaya Cabdiqaadir Jirde oo Ingiriisku dhaqaale ku bixiyay oo Imaaraadku dhaqaale ku bixiyay si dekada Berbera iyo suuqii ganacsigu dib u furmo waxay xiriirka ay la soo sameeyeen dad badan oo xitaa mas'uuliyiin dhaqaale badan ayay soo bandhigeen laakiin waa ay diideen dhamaantood waxana la helay xubnahan magacaabi doono way ujeedka maxay tahay arintani kow waa kala qaybin reer SSC Khaatuma waa kala qaybin
dowladnimada istiqaatumo waa kala irdhayn midnimada wada jirka reer istiqaatumo kala qaybintu maxaa waaye waa in wiilasha furinta ku wada jira ee furimaha ku wada dhimanaya soo sanaag iyo cayn in la kala irdheeyo in kala shaki lagu kala abuuro arintani way dhacday hadda ka hor 1991kii markii Ceergaabo lagu dagaalamay gobolka Sanaag iyo gobolka Soolba dhulbahantii iyo warsangarigii gaargaar bay loo shireen waa ay kala qaybiyeen sida daraadeed waxa timid 30 sano crisis in la galo oo kala shakiya naanayso la isu sameeyay reer hebel baa hadda ka hor halka tagay reer hebel baa dagaalka nooga baxay reer hebel baa halka tagay in dadkaasi ay ku jiraan waa kala qaybin arinta maanta socotana waa kala qaybin in la kala qaybiyo bulshada reer istiqaatumo ingiriiska iyo Imaaraadka ayaa dhaqaalo ku bixinaya nimankaasi berito ayay rabaan inay baxaan meesha u socdaana wax weey waa gaashaamo sabtida la rabaa in gaashaamo la isugu tago oo nimanka horgalada iyo isaaq abariyoonis iyo hadii la kuuraya leh nimanka la yiraahdo habar jeclo ayaa la rabaa in gaashaamo lagu shir gaashaamo isaaq ogtiin isaaq baa degan waxay ka tirsan tahay dowladda deegaanka Soomaalida waxaan rabaa inaan idin magacaabo waan liiska magacaabo ragga hawshan falkan runtii khatarta ku ah midnimada iyo wada jirka una baahan in si degdeg ah looga hortago falkan waxa qayb ka ah oo hogaaminaya kow jaamac kuutiye waa wada garanaysaan 17 sano buu Hargeysa iyo Berbera ku xunay Madheera waa nin la yaqaan weey waa ragga waan garan waayay nimanka ninka ay xidhaan iyo ninka ay dhaawacaan iyo ninka ay dhibaatayaan sababtu ku jeclaada waan garan waayaan jaamac kuutiye kamida ninkaas 17 sano Madheera ku xunaan dhawaan baa la soo daayay 2022 baa la sii daayay 17 sano iyo adag u xunaa waa kow waxa ku jira nin la yiraahdo Cabdisamad Cali Xasan waa reer Buuhoodle waa la garanaya waxa ku jira Caaqil Cabdi Halaaq Muuse Ismaaciil waa la garanaya waxa ku jira ina cuno joog waa garanaysa waxa ku jira Sheekh Umar Daamagaare Umar Suudaani waxa ku jira Sheekh Umar Sheekh Ismaan Dariiqi waa ninka gudoomiyaha u ah ee xirsi saaxiibka la ah ee dhawaan Hargeysa ka yimid ee malafkan gacanta ku haya ee dhaqaalaha soo qaaday ee waxa weey saldhigga u haweeyay ragga aan tiriyay waa ragga doonaya inay ilduufaan waxgaradka bulshada reer Buuhoodle bulshada reer istiqaatumo waxay ka shaqeynayaan kala irdhayn bulshada waxay caawa ku sugan yihiin Buuhoodle qofka soo reer Buuhoodle oo reer istiqaatuma magacyada aan tiriyay waad garanaysaa ka hortag guriyaha loogu daato oo ha laga hortago oo hal la joojiyo bari jimcaha rabaan gaashaamo tagaan in heshiis qorsoodiye la soo galaan isaaq inay dhulbahantay reer istiqaatumo kala irdheeyaan in la kala shakiyo in wiilasha ku furinta jooga la kala firdhiyo ayay ka shaqeynayaan taas waa warning aan u dayo reer istiqaatumo maamulka waxaan leeyahay dawladda istiqaatumo wax kasta oo bulshada lagu kala irdheynayo mas'uuliyadda ka saaran wax ka qabataan mas'uuliyaddaas inaad qaadataan weeyo maamulka degmada maamulka gobolka taliyaasha ciidamada saraakiisha fariinta la gaarsiiyo in laga hortago waa in xabsiga lagu ururiyo xabsiga intaan caawa ka lahayn waa in xabsiga lagu ururiyo weey waxa 15 sanadood waxa halka ina dhigay dhulka inuu crisis galo in cadow reer ku soo duulo in reer qabsado waa sidii nin shakhsi horgala oo caaqaata si madax loogu buuxiyay maanta aynu ka hortagno laas aanood iyo sool iyo sanaag nin jilicsan bay ka waayeen nin cadquursi iyo horgal ah oo u dhagan nugul ayay ka waayeen maanta Buuhoodle laga helay reer Buuhoodle arinta ka hortaga jamaahiirtu ka hortagtaan guuto koowaad la gaarsiiyo dhiiga caruurtiini baa la rabaa in laga baayac mushtiro guriyaha ugu daata ka hortaga joojiya raggaasi falka guracan ay doonayaan inay ku ilduufaan reer istiqaatumo nabadda ma aha inaan ka soo horjeedo nabadu waa loo baahan yahay isaaqana danbay u taanana danbay noo tahay laakiin waa goorma waa nabad wada jira ilaa sanaag ilaa sool ilaa cayn hal mar ba nabad ku xirmaysaa hal mar bay nabad ku xirmaysaa cid loo kala dhuumanayna ma jirto arintaasi waa wixii aan hore u eednay waxaan u baahanahay waa digniin waa arin degdeg weey hal la gaarsiyo qofka sareeray istiqaatuma maalinta jimcaha ayay doonayaan in nimankaasi Buuhoodle ka baxaan oo gaashaamo isaaq degan yahay tagaan halkaana lagu soo sawiro taas waa qodob weey hadii negotiation la galayo hadii wada xaajood la galayo hadii wada hadal la galayo
سياسة maamul baa inoo qaabilsan dawlad baynu u leenahay dawladda xaq u leh haday noqoto dhaqan inay wada hadlaan ismeenu leenahay inta waxba kama oga arintan aynu idinku celiyo warkan waa u jeedaan waa safiirka hore Ingiriis wuxuu yiri wadada in la furo maxaabiista la isu sii daayo arinta ugu weyn ganacsigana waxa weey la isu weedaarsado arinta dhaqaale badan ba Ingiriisku ku bixiyay qorshe waxa weey waa in ay kala shaqeeyaan reer istiqaatumo waa in la kala qaybiyo weey in dadku ay ku baraarugaan oo ay ka feejignaadaan oo ay ka hortagaan weeye inuu dagaal banu galay dagaalka hartiye isaaq baa galay hadaynu wada hadalna hartiye isaaq banu wada hadalna hadaynu wada xaajado galina hartiye isaaq banu wada hadalna hadaynu colaad qaadanana hartiye isaaq banu qaadanana hadaynu nabad wada qaadanana hartiye isaaq banu wada qaadanana waxa la doonayo ay wiilashaas horaga wiilma ah waa rag ka weer ba 60 jire waxay doonayaan dhiiga dhaxalka aruurteena inay luusiyaan dhaxalka aruurteena inay door ka xaraashaa bay doonayaan maanta si awal walba qabo shacbiga midaysan iyo dawladda maanta leenahay oo u baahan dawladdu inay doorkeeda qaadato waa ka hortagayna arintaasi waa xaqiiq waa confirm way bari bay rabaan inay baxaan hal laga hortago wallahi ina abasho soo horgal ma ahayn waa kuwa ka sixun ina abasho way noo bareeray horgal buhay kuwa jooga culimada sheeganaya ee waxa masaajidada inoogu jira ee ka shaqeynaya inay dhulbaahanta kala irdheeyaan oo wiilka sanaa ka yimid iyo wiilka sool ka yimid iyo wiilka buuhooda jooga ee furinta kuwa dhimanaya furinta kuwa jira inay kala shaqeeyaan kuwa ka shaqeynaya maxay ka shaqeynayaan waa dulli bay ka shaqeynayaan arinta laga hortago insha Allah ta'ala waa war weyn hal isgaarsiyo meel yar laga tuuro insha Allah ta'ala maamulka dawladuna doorkeeda ha qaato arintaas laga hortago hadda weyn laga hawlgalaa jamaahiirta marka afurtaan ka hawlgal hadeer insha Allah ta'ala khayr bad ma yirjeenay insha Allah ta'ala maamulka doorkiisa qaato dawladuna doorkeeda qaato khayr bad ma yirjeenay assalamu alaykum